walaalahana daawada waqtiyaalo badan baan wada joogi doonaa walaacaan siyaasiga dhibanaha waqtigu helay falanqaynta waayaha wax kastay ahaataba dhammaan weydu naga heli shacbi weynahaygow sharaf baydun mudantihiin sheerku waa dhankiino leebku waa ku daba qabo dhiirigelin wanaagliyo waxtar bay inoo noqon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal meel kastoo joogtaan kulanti wanaagsan oo wacan waa mar kale iyo barnaamijyadeennii barnaamijkii siyaasadda oo aan toddobaadkan gaar ahaan kusoo qaadan doono galmudug iyo howlaha ka jira. barnaamijka galabta waxaa inoogu martiya oo inala jooga maxamed cali oo ah abwaan Soomaaliyeed runtii oo aad iyo aad u soo dhaweynayno barnaamijkoonu si gaar ahaan su'aalo u weydiin doono abwaanka wixii aragtidiisa ah iyo arrimaha ka jira galmudug. ku soo dhawow barnaamijka abwaan maxamed cali aad baan kuu salaamayaa. soo dhawow abwaan. aad iyo aad waan ku dhowahay barnaamijka maxamed, waan ku dhowahay waana kaaga mahad celinayaa. waad mahadsantahay abwaan. abwaan waxaa jirtay in imika intan dambe ay xukuumadda federaalku ay maxay ahayday ay lug iyo dhaqdhaqaaqyo badan oo markaasi sunna wal jameeca meesha lagaga xoreynaya in la waday. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo maxay tahay sababta ay dowladda federaalku u faragelisay galmudug? bismillaahi wakafaa lillaah. waxaan dareemayaa laba qodob baan u kala qaadayaa. sababta u horeysa waxa weeyaan dowladda federaalka ahi dabcan qofkii wax garanaya waxa weeyaan awoodda ugu sareysa waddanka weeye. sababta ugu horeysa waa midaas ay ku faragelisay. dabcan sababta labaysa waxa weeyaan inay dan khaasa ka yeelato, danahaasoo macnaa laga dareemi karo inay noqon karaan doorashada soo socota xilliga dhow, inay ku yeeshaan awood meeshaas oo taageerayaashoodii wuxuu halka ay isugu geystaan. iyadana jawaabta labaad oo loo fasiran karo wey. marka labadaas ayaan kusoo koobayaa culayska ugu weyn oo ay tahay sababta ay dowladdu u faragelisay galmudug. labadaasaan kusoo koobaya. waa tahay maxamed cali saad ka dhawaajisay. su-aasha xigta haddii aan ku weydiiyo muddo intee leeg ayay markaasi ka talinaysay sunna wal jameeca ee isla galgudug? waa sax, waa muddo horta waxa weeyaan muddo aada u fog ayay ka talinaysay sunna wal jameeca galguduud. ilaa 10 iyo dhowr sano ayay ka talinaysay. xaqiiqatan waxa weeyaan waa arrin aada u wanaagsan, ficilo aada u wanaagsan ayay ka sameeyeen. nimankii khawaarijta ayay kula dagaalameen. dhulka waxaa haysan jiray galguduud nimanka shabaabka ah ayaa awood ku lahaa. nimanka ka saaray oo u xoog sheegtay waxay ahaayeen sunna wal jameecay ahaayeen. maamul ayay ka sameeyeen, maamul aada u wanaagsan oo isdhexmarka iyo wada noolaashaha hormuud u ah ayay ka sameeyeen. ilaa iyo laga gaaro galmudug labadii gobol inay israacaan iyagaa gacanta ku hayay. wax wanaagsan bayna ka soo qabteen, waanay u dhinteen. wax wanaag badan way ka soo qabteen. doorkaa mid lamid a waxaa ka ciyaaray madaxweyne xaaf ayaa ciyaaray isaguna muddadii uu galmudug uu madaxweynaha ka ahaa. sidaas ayuuna macnaa tanaasulaad badan kadib sunna wal jameeca iyo galmudug ay u midoobeen labadii gobol oo ay ku noqdeen galmudug midaysan. marka waxa la taaban karo muuqda ayay ka soo qabteen, waanay ku ammaanayeen. waad mahadsantahay abwaan.
ugu dambeyntii su-aaltaasi u dhow haddii aan ku weydiiyo maadaama oo looga itaal roonaaday sunna wal jameeca oo dowladda federaalku uga awood roonaatay inay markaasi ka lug bixiso dhammaanba gobolka maxay markaasi sunna wal jameeca noqon doonaan ma kuwo duurka gala oo jabhadeeya mise xukuumadda ayay markaasi uuni garab istaagi doontaa waa su-aal aada muhiim u ah dadkuna isweydiinayaan waxa ka iman karaya sunna wal jameeca sidaan malaynayo oon aada ugu kalsooni badanahay macnaha dad jabhad inay hadda kadib noqdaan suuragal u tahay ma ahan waa dad hadda markii laga itaal roonaaday inay isdhiibeen oo ay daaragta isugu dhiibeen dowladda xukuumadda soomaaliyeed ay isu dhiibeen iyo ciidanka dowladda haddii marka ay noqoto xukuumaddii ay maadaama isu dhiibeen xukuumaddii waxa ka suuragal ah oo macnaa social media iyo wararka nagu soo haadayo oon dareemayno aniga nafteedkeygu aan dareemayo waxay doonaysaa dowladdu in ay mukhtaar roobow oo kale iyo sheekh ninka la yidhaahdo ay ku xirto meel oo ay labadan wadaad ay meel ku xirato walow aanay muuqanin sansaanta noocaasa laakiin dowladdu way aad bay u danaynaysaa aad bay waxay awood u saa shaladii u dambeysay diyaarad bay dirtay dowladdu oo khaasay u dirtay macnaa ay u dirayso in lagu soo qaado labada mas-uul oo sheekh maxamed shaakir iyo sheekh maxamuud laakiin ma muuqato sansaantaasi oo macnaa caqliga bini aadmiga wax geeli kara inaysan hayn maadaama wada isdhiibeen oo dowladdii inay la shaqaynayaan sheegeen ma muuqato inay suuragal u noqon karto dowladda inay xiraan oo ay meel ku xabisaan sidii dadka qaar oo kaleeto waa tahay abwan waad mahadsantahay abwan barnaamijka iyo gabagabadii waxa aan ku weydiin lahaa su-aasha ugu dambeysay oo imika waxaad noo sheegtay afkaaga waxaad noogu sheegtay in nimankaasi sunna wal jameeca ay wax badan gobolka usoo qabteen oo wada noolaashaha iyo arrimaha bulshadaba ay si fiican u dhiseen ay nimankii maaragtay xumaana wadanka ay ka saareen okay maxaa imika deegaan ahaan iyo gobol ahaan meeshaasi galmudug iyo galguduudba dadka dareenka shacabka maxay kula tahay sidee loo soo dhaweynayaa xukuumadda federaalka maadaama oo sunna wal jameeca oo waxqabadkoodu fiicnaaba saad noo sheegtay ay hadda xaaladoodu sidaa maanta ay tahay horta shacabku waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed meel walbuu joogo wuu bislaaday waa dad macnaa u hamuun qaba inay helaan future iyo nolol iyo horumar inay helaan dad u hamuun qaba weye dadka xaqiiqatan marka la eego marka shacabka galmudug waxaan rajeynayaa inay la shaqayn doonaan madaxweynaha hadda talada haya qoorqoor oo kale qoorqoor oo hadda madaxweynaha galmudug ah inay la shaqayn doonaan liannahu horumarkooda dib u dhac weynaa ku dhacay xaqiiqatan galmudug marka laga hadlayo galmudug marka magac bay ka joogtaa mooyaane xaqiiqatan dib u dhac aada u culusaa ku dhacay waxay ku soo kaban kartaa marka hoggaan daacada dadku ma filayaan dadku qalbiga inkastay ka qabaan hankoodu jaban yahay haddana waxay ku xiran tahay hoggaanka hadda talada haya wixii qaabku la yimaado ayay ku xiran tahay dadku waxay ula shaqaynayaan hadduu hanaan wanaagsan la yimaado dadku horumarka way doonayaan waanay la shaqaynayaan waa taawad mahadsantahay abwaan maxamed cali kaasi wuxuu ahaa abwaan maxamed cali oo ku sugan caasimadda baariis oo runtii ah abwaan soomaaliyeed oonu waraysi kula qaadanay galabta arrimaha siyaasadda iyo galmudug tan iyo barnaamijkeena xiga daawadayaal dhegeystayaal waa anigoo idin leh nabadgelyo